bismillaahi raxmaani raxiim door wanaagsan qodobada wararka raadiyaha kulmiye duhurnimadana waxaa ugu dooroon dowladda Soomaaliya oo gabi ahaanba dalka ka mamnuucday in ay soo galaan dadka ka imaanaya dalalka uu sida daran u saameeyay caabuqa coronavirus. Kenya oo ku dhawaaqday baadigoobka ku dhawaad 30 ruux oo looga shakisan yahay inay qaadeen cudurka COVID-19. shirka looga hadlayo aayaha Puntland oo Garowe ka furmay iyo madaxweyne Dani oo dowladdu ku eedeeyay in ay awood u sheeganayso maamul goboleedyada. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun adag ku riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo dad shacab u geystay dil iyo dhaawac. madaxtooyada Kenya oo shaacisay in uu baaqday shir 3 geesood ah oo madaxda dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya ku dhexmari lahaa magaalada Mombasa. taliska booliska magaalada Doorsamareeb oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen haweeney iyo saygeeda oo la tilmaamay inay ka dambeeyeen dilka gabadhooda. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo sheegay in dalka ay ka jirto xaalad siyaasadeed oo cakiran kadib markii maanta dalka dib ugu soo laabtay. ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qarka u saaran inay la wareegaan deegaanka Jannaale oo ay isaga baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. xukuumadda Afghanistan oo diiday sii deynta maxaabiista ururka Taliban. iyo Ruushka oo xiray xuduudaha dhanka dhulka ee uu la wadaago wadamada dariska la ah. markale duhur wanaagsan waa Axad 15 bisha 3 ee Maaj sanadka 2020 warkeena duhur Maxamed Cali Maxamed ayaa soo saaray anigoo ah Farxiyo Xuseen iyo Maxamed Shuuriye Nuur ayaana soo jeedinaya markan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan. dawladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba dalka ka mamnuucday in ay soo galaan dadka ka imaanaya dalal uu sida daran u saameeyay caabuqa coronavirus sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena Axmed Maxamed Ibraahim. amarka soo baxay hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya ayaa dalka looga mamnuucay inay soo galaan rakaabka ka imaanaya dalalka Shiinaha, Iiraan, Talyaaniga iyo Koonfurta Kuuriya kuwa iskugu jira muwaadiniinta iyo ajaanibta u dhashay dalalkaasi si looga hortago faafinta cudurka coronavirus. sidoo kale waxaa lagu wargeliyay shaqaalaha iyo duuliyayaasha diyaaradaha in haddii rakaabka qaar oo ay uga shakiyaan inuu hayo cudurkan ay qalabka raadiyaha kala soo xiriiraan howlwadeennada hay-adda duulista ka hor inta aysan diyaaradda soo caga dhigan si loo mariyo qalabka caafimaad ee lagu baaro dadka qaba xumadda coronavirus. maalin ka hor ayay ahayd markii dalalka Itoobiya iyo Kenya oo daris la ah Soomaaliya laga helay kiisas la xiriira caabuqa coronavirus. arrintaasi ayaa cabsi badan laga muujiyay maadaama Soomaali badan ay ku nool yihiin dalalka Kenya iyo Itoobiya isla markaana ay ka yimaadaan halkaasi qaadka laga isticmaalo gudaha dalka. goor hore ayaa wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ay geysay garoomada diyaaradaha ee dalka howlwadeeno baaraya dadka ka soo degaya garoomada si loola socdo xaaladooda caafimaad. sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa shalay waxay shaacisay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay yareeyaan safarada ay ku aadayaan dibadda iyo isumaatinka bulshada si taa beddelkeeda loogu badbaado caabuqa COVID-19. wadamada caalamka ayaa haatan waxay dadaal xoogan ugu jiraan dabargoynta iyo la tacaalidda dadka uu saameeyay caabuqa coronavirus waxaana istaagay badanaa dhaqdhaqaaqyada duulimaadyada caalamka sabab la xiriirta COVID-19. isla wararka la xiriira caabuqa corona ayaan ku jirnaa. Kenya ayaa ku dhawaaqday baadigoobka ku dhawaad 30 qof oo looga shakisan yahay in ay qaadeen cudurka COVID-19. Maslax Abuukar Xaaji ayaa dhameystiraya. afayeenka dawladda Kenya Cyrus Aguna oo warbaahinta la hadlayay isaga oo ay weheliyaan wasiirka caafimaadka dalkaasi iyo xoghayaha wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dawladda Kenya ay karantiishay 22 ruux oo qayb ka ahaa dayuurad ay saarneed haweeneydii dhawaan laga helay caabuqa coronavirus oo gudaha dalka Kenya iminka lagu baxnaaninayo. iyadoona wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ay sidoo kale sheegtay in ay baadigoobayso ugu yaraan 25 kale oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee dayuuradda saarnaa oo iminka gudaha dalka Kenya ku sugan. qaarkood ayaa taleefono lagula hadlay waxaana loo sheegay in ay muddo 14 maalmood si iskooda isku karantiilaan ama ay tagaan
xarumaha dowladda ay ugu talagashay in ay ku baxnaaniso dadka uu soo rito cudurka coronavirus si loo ogaado in cudurka ay qabaan iyo in kale. waxaa jira walaac aad u xooggan oo guud ahaanba dalka Kenya ka jira, iyadoona inta badan magaalooyinka waaweyn guud ahaanba dadka ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay u dukaamaysan lahaayeen. waxaase sidoo kale muuqata in sicir barar aad u xooggan laga dareemayo qiimaha la kala siisto adeegyada quutul daruuriga ah ee bani aadamka uu u baahan yahay. sidoo kale wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa waxa ay u sheegtay guud ahaanba shacabka ku nool gudaha dalka Kenya in kiis allaale iyo kiiskii ay arkaan sida ugu dhaqsiyaha badan laamaha caafimaadka ay ula xiriiraan, iyadoo heegan la geliyey guud ahaanba waaxyaha caafimaadka ee dalka Kenya. waxaa Kenya laga helay jimcihii aynu ka soo gudubnay kiiskii ugu horeeyey ee caabuqa coronavirus oo adduunka dhibaato fara badan ku haya, waxaana ay ahayd haweeney u dhalatay dalka Kenya oo ka soo socdaashay Mareykanka, waxaana ay soo martay London. hase ahaatee waxaa in badan oo ka mid ah shacabweynaha dalka Kenya ay wax iska weydiinayaan cudurkan iyo awoodda ay u yeelan karto dowladooda inay xakamayso in uu ku sii faafo meelo hor leh oo dalka ka mid ah. isla Kenya, war ka soo baxay madaxtooyada Kenya ayaa lagu sheegay inuu baaqday shir 3 geesood ahaa oo magaalada Mombasa ee dalka Kenya ku dhaxmari lahaa madaxweynayaasha Soomaaliya, Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia. warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay sababta u baaqday kulankaasi inay la xiriirto caabuqa coronavirus oo kiis ka mid ah waddankaasi laga helay. shirkan ayaa lagu waday in looga hadlo khilaafka iyo xiisadda ka taagan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. wararka Garowe haddii aan eegno, shirka looga hadlayo aayaha Puntland ayaa maanta Garowe ka furmay iyadoo madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Dani dowladda uu ku eedeeyay in ay u awood sheeganayso maamul goboleedyada. Cabdisitaar Xaaji Cali ayaa dhameystiraya. magaalada Garowe caasimada maamulka Puntland ayaa maanta waxaa ka furmay shirka wadatashiga maamulka Puntland, waxaana shirkaasi ka soo qayb galay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, siyaasiyiin, madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland, waxgarad iyo mas'uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay maamulka Puntland. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo furay shirkan ayaa si kulul u weeraray madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in madaxda dalka ay si bareer ah u mareen mabaadi'dii lagu dhisay dowladnimada, taas beddelkeedna ay caadaysteen faragelin iyo caburin ay ku hayaan maamul goboleedyada dalka ka jira. sidaas si leeg waxaan wadaxaajood gooni ah kala yeelannay madaxda dowladda federaalka ah sidii xal loogu heli lahaa caqabado gooni u ah Puntland uga imaanaya dhinaca dowladda federaalka. dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin, intooda badan waxay ka socon waayeen dhinaca dowladda federaalka. waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka ah oo si bareer ah u hareer maray mabaadi'dii lagu dhisay dowladda federaalka, iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka ku-meelgaarka ah iyo shuruucda dalka ee kale. burburinta, fargelinta, afduubka, caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa dhinaca kale sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku guuldareysatay dhammaystirka dastuurka dalka, la dagaalanka al-shabaab, dhismaha ciidamada qalabka sida diyaarinta sharciga doorashooyinka. waxauna carabka ku adkeeyey in madaxda dalka ay samaysteen sharciyad dana qaas ah ay ka leeyihiin. arrimaha masiiriga ah oo ay ugu horreeyaan dhammaystirka dastuurka, la dagaalanka argagixisada, dhismaha ciidan leh sumcad qaran iyo diyaarinta doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka qabsooma, taasoo loo marayo waddo toosan oo heshiis lagu wadaya. waxaa la samaystay sharciyo dana gaara laga leeyahay aanan waafaqsanayn dastuurka ku-meelgaarka, taasina tashiga aan lagala samayn maamulada dalka si waafaqsan dastuurka ku-meelgaarka. dhammaan deeqihii caalamiga ahaa ee soo maray dowladda federaalka ah waxay noqdeen kuwo aan si hufan dadka Soomaaliyeed loogu qaybin, inta badanna loo isticmaalo arrimo siyaasadeed. hadalka madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa imaanaya xilli maanta uu furmay shirka wadatashiga maamulka Puntland ay ka qayb galayaan siyaasiyiin, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, waxaana maalintii shalay ahayd Puntland ay fasaxday goobaha waxbarashada.
maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun adag ku riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo dad shacab ah u geystay dil iyo dhaawac. Wariyeena Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramaya. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka kaas oo loo haysto dil iyo dhaawac uu u geystay laba qof oo xoogsata ah. dable xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hiloole ayaa loo haystaa dilka Allah u naxariistay marxuum Xuseen Axmed Cabdulle iyo dhaawac Yaasiin Geedi Xuseen kadib markii ay ka diideen inuu si qasab ah ugu fasho beer uu lahaa eedeysanaha oo ku taal Buula Mareer 31 bishii 10 ee Oktoobar ee sanadkii tagay ee 2019. taliska ciidanka gaar ahaan ururka 6aad ayaa ku wareejiyay eedeysanaha 3 bishii November ee 2019 xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida. waxa uu xafiiska isla xilligaas weydiistay garsoorka in xabsiga dhexe loo gudbiyo dable xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hiloole garsuga ahaan. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamna Ismaaciil Salaad Maxamed ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sheegay in eedeysanahan ka tirsan ciidanka xoogga dalka uu dadkaasi ula dhaqmay qaab adoonsi ah isla markaana uu damciisu ahaa inuu dilo marxuum Xuseen Axmed Cabdulle si inta kale ay si qasab ah ay ugu shaqeeyaan oo uu beertiisa ugu fasho. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho ku riday Cabdiraxmaan Cabdulle Hiloole taas oo ah qisaasta marxuum Xuseen Axmed Cabdulle sida uu goobta ka sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute. gudoomiye Shuute ayaa meesha ka saarin in xukunsanaan uu haysto fursad 30 cisho ah oo uu ku qaadan karo rafaan ku aadan xukunka maanta lagu riday. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 10 bishan oo ku beegneed maalintii Talaadada ahayd ee la soo dhaafay sidaan oo kale xukun dil toogasho ugu riday askari wiil dhalinyaro ah ku dilay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta kaas oo ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waad mahadsantahay Cali. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa mar uu si kooban ula hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in xaaladda siyaasadeed ee dalka ay tahay mid cakiran loona baahan yahay in looga gudbo wada tashi. sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha xisbiyada siyaasadda waxaana uu sheegay in madasha xisbiyada qaran ay ku midoobeen hal xisbi dhawaana ay shir ku qabsan doonaan magaalada Muqdisho oo aragti siyaasadeed oo dalka miday karta keeni kara. marka 45 maalmood gudahooda in lagu soo diyaariyo barnaamijkii kadibna la isu yimaado. dabcan waxaana marxaladii maraan laakiin go'aanka waa la wada qaatay. marka waxay soo dhaweynaysaa dadku Soomaalida inay u gudbaan afkaar fikir siyaasadeed. waxaan aaminsanahay wax baahi loo qabo inay tahay marka shaqadaas oo runtii aan aaminsanahay inay shaqo weyn tahay dalkana ay keeni doonto inuu ka baxo xaaladda cakiran. ilaan dalka mushkiladiisu waa siyaasadda dib kale kama jiro. codkaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta dib ugu soo laabtay dalka. dhanka kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qarka u saaran inay la wareegaan deegaanka Janaale oo ay isaga baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Faysal Cabdulqaadir Yuusuf ayaa faahfaahinaya. wararka imaanaya deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku soo waramaya in halkaasi maanta ay ka taagan tahay saasaan colaadeed iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay militariga Soomaaliya ku doonayaan inay kula wareegaan deegaankaasi. deegaanka Janaale oo hoostaga magaalada Marka ee Shabeellada Hoose ayaa waxay dadka deegaanka ay sheegeen in Al-Shabaab ay isaga baxeen Janaale oo in muddo ay maamulayeen. ciidamada militariga Soomaaliya ayaa haatan waxay ku sugan yihiin tuulada Buufo Bacaad waxaana maamulka Janaale ay sheegeen in saacadaha soo socda ay la wareegi doonaan deegaankaasi. gudoomiyaha arrimaha bulshada deegaanka Janaale Cabdullaahi Cali Nuur Shaacir ayaa idaacadda kulmiye u waramay. meeshaan hadda waxa ka socdo guruf colaadeed iyo saansaan sidii ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed sidii ay kula wareegi lahaayeen deegaanka Janaale hoos yimaado degmada Marka. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiis kala duwan ayaa ku sugan iyo madaxdii waxaana hadda loo diyaar garoobay sidii lagula wareegi lahaay Janaale loogana xoray lahaay qolooyinka nabadiidka ah ee Al-Shabaab ee ummadda dhibaateeyeen muddo badan ee meeshaas ku haystay. marka sidaasaan hadda howlgallada ay ku socdaan wixii tafaasiil ahna waa horta deegaanka markii la tago Janaale la tago qaybihiisa badan amnigiisa la xaqiijiyo ayaa laga warrama karaa way ka baxeen iyo kama bixin. dadka ay warbixintaas soo gudbahay waxa laga yaabaa dad ay ayaga soo adeegsadeen inay yihiin
ay dhiislahaayeen dadka way ka baxeen ciidamada dawladda ayagoo habaxsan inay soo galaan. gobolka shabeellada hoose ayaa ka mid ah gobollada deegaano iyo degmooyin muhiima ay ka haystaan al-shabaab waxaana mararka qaar ay weeraro sababa khasaaro badan ay ku qaadaan xeryaha ciidamada dawladda ee gobolkaasi. wararka gobolka galguduud markaan haddii aan eegno taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen haweeney iyo seegeeda la sheegay in ay ka dambeeyeen dilka gabadhooda. maxamed cabdiweli tuuxow ayaa warkan inoo soo diray. ekraan mira xaashi oo ahayd gabadha 11 sano jir ah isla markaana u geeriyootay dhaawac soo gaaray jirkeeda gaar ahaan madaxa ayaa maanta waxaa lagu aasay qabuuraha ku yaala magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. gabadhan yar ayaa waxaa dilka u geystay hooyada dhashay iyo sidoo kale adeerka hooyadeeda qaba. xubno ka mid ah laanta dambi baarista booliiska iyo saraakiilaha ka tirsan saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa meydka marxuumadda iyo labada eedaysane ee falkani lagu tuhmayo ka soo qaaday saqdi dhexe ee xalay tuulada Jecaloosan oo deegaanka Bohla u jirta 15 kilomitir dhanka kalena magaalada dhuusamareeb dhanka waqooyi uga beegan 45 kilomitir. taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb Burhaan Axmed Rooble oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay sida falkani uu dhacay iyo waxyaabaha ka soo baxay baarista hordhaca ah ee booliisku wado. waxaan gaarnay goobtii dhibka ka dhacay waxaan soo xaqiijinay sidii wax ay u dhaceen goobtii markaan tagnay sidii shaqada booliiska loogu talagalay waxaan diyaarinay inaan xirnay crime scene inaan baaritaan sameynay waxaan soo aragnay ama aan ka soo helnay goobtii marag muujin waxa la yiraahdo marag muujin agabkii ama haraadigii ka haray dhacdadii meesha ka dhacday oo ah xijaabkii gabadha ay sidatay la dilay iyo timaheedii cadad ka go'go'ay oo xilligii la dilay gabadha waxaa ka mid ahay qaabkii loo dilay nabaro la gaarsiiyey madaxa gabadha waxaa go'ay cadad ka mida jirkeeda timaha cadad ka mida jirkeeda iyo tinteeda waxaan soo qaadnay marag muujintaas tintii iyo xijaabkii goobtii lagu dilay waxaan soo ogaanay sidii u dhacday dhacdadaas dhacday dhammaan waxaan soo qabanay tuhmanayaashii lagu tuhmayey inay geysteen dhibaatadaas dilka gabadhaas marxuumadda saqiiradda ah oo la yidhaahdo ikraan mire. aaba mira xaashi oo ah aabaha dhalaya marxuumadda ikraan ayaa uga mahad celiyay booliiska gacanta ay ka siiyeen hordhaca muuqda ee baarista isagoona dalbaday in cadaaladda la dhammaystiro. ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee maamulka galmudug ee qaasan dhuusamareeb magaalada madaxda arrintaas si fiican nagala shaqeeyeen ilaa xalan ku daba jirnay ilaa shalan raadaynay dadkii falkaas geystana waan soo qabanay waana la soo ciidanku amniga soo qabteen waana xiran yihiin anigu marliba gabadheeda waa dhimatay waxaan u baahanahay cadaalad waxaan u baahanahay cadaalad amniga cadaalad u baahanahay garsoorka cadaalad u baahanahay gabadheeda in sharciga islaamka wixii uu qabo dadkeeda falkaas geystay la imariyo. maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb. halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho. iminkana wararka dibadda. war ka soo baxay dowladda ruushka ayaa waxaa lagu amray ciidamada ammaanka dalkaasi in gebi ahaanba ay xidhaan xuduudaha ruushiya ay la wadaagta dalalka Poland iyo Norway maanta oo axada sabab la xiriirta halista cudurka coronavirus oo sii kordhaysa wakhtigan. ciidamada federaalka ee dalka ruushka ee magacooda loo soo gaabiyay FSB ayaa la geeyey xuduudaha dhinaca dhulka ee ruushka uu la wadaago dalalka ay ka midka yihiin Poland iyo Norway waxaana dib loo celinayaa qof walba oo Ruushia ka soo galaya dhinaca dhulka. waxaa go'aankan ay gaartay xukuumadda ruushka lagu wargeliyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalka Poland iyo Norway. dhinaca kale dalal badan oo ay ka mid yihiin Faransa, Spain iyo Mareykanka ayaa waxaa iyaguna ay dhowaan ku dhawaaqeen in guud ahaanba ay joojiyeen duulimaadyadii caalamiga ahaa iyaga oo baqdin ka qaba cudurka coronavirus oo asalkiisa ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha.